Hello walaalayaal, waxaan ka soo hadalnay last videogeeni muxuu u dhintay Ciise. Waxaan niri wuxuu u dhintay Ciise dambiga aan galnay dartiis. Bini'aadamkeena dambiga aan galnay dartiis ayuu Ciise noogu dhintay oo uu naga furtay dambiyadan galnay. Maxaa la yiraahdaa saa darteed Ciise u dhintay. Marka su'aasha labaad oo imaanaysa waxay tahay maxay tahay dambi? Taabku muxuu ka leeyahay dambi? Waa maxay dambi? Su'aal weyn oo la isweydiiyo weeye. Laakiin siday caadadayda tahayba waxaan uga jawaabayaa waxa uu ka oranayo kitaabka Bible-ka ee Quduuska ah. Roma 3:23 maxaa yeelay dhammaan way wada dambaabeen oo gaari waayeen ammaanta Ilaah. Maxaa yeelay dhammaan way wada dambaabeen oo gaari waayeen ammaanta Ilaah. Dadka bini'aadamka oo dhan waan wada dambaabnaa. So Ilaahay dartii way gaari waayeen bini'aadamka sababtoo waa dad wada dambaabay baan nahay. Ayada kale oo ka hadlaysa waxa uu yahay dambiga ka hadlaysa waxa weeye Matthews 5:48 saas aawadeed u samaada sida aabihiin jannada u san yahay. Saas aawadeed u samaada sida aabaha jannada u san yahay. Ilaahayna weyn sida u wanaagsan yahay u wanaagsanaada. Ayad kale kitaabka ka oranaysa Yohana 5:17 xaqdarrada oo dhami waa dambi. Walaalayaal waxa weeye taas macnaheeda xaqdarrada wixii xaqdarro bini'aadamka laga galo waa dambi. Waxaa jira dambi aan xagga dhimashada ahayn. Waxa weeye macnaheeda waa kan aan aaminin Ciise. Kaas ayaa dambi ah. Qofkaan aaminin Ciise kaas waa dambiile. Ayada kale oo ka oranaysa ka hadlaysa waxa weeye Matthews 15:7 ilaa 11 labiwajiilayaalow Asiyos aad buu wax idinka sii sheegay markuu yiri dadkanu bishimahooda ayay igu maamuuseen laakiin qalbigooda waa iga fog yahay. Si aan macno lahayn ayay ii caabudeen iyagoo dadka wax ku baryaya amarada dadka. Markaasuu dadkii badanaa u yeeray oo yiri maqla oo garta ma aha wax afka gala wax nin nijaaseeya laakiin waxa afka ka soo baxa kaas ayaa ninka nijaaseeya. Waxa aan cunno ama cabno mana nijaaseeyaan laakiin waxa qofku uu sameeyo bini'aadamka ayaa ku nijaaseynaya sida maaragtay jirka iyo waxa wasaqda qofka indhaha ku fiiriyo maaha waxa la cuno. Walaalayaal ayada kale oo cadeynaysa waxa dambigu yahay waxa weeye Matthews 15:18 ilaa 20 laakiin waxa afka ka soo baxa qalbiga ka yimaadaan. Waxa afka ka soo baxa qalbiga ka yimaadaan oo kuwaas waxa weeye waxa ninka nijaaseeya. Waayo waxa qalbiga ka soo baxa fikrad shar leh iyo dilid iyo sinada galnimada xaaraanta ah iyo tuugnimada iyo maragta beenta ah iyo cayda. Kuwan weeye waxa ninka nijaaseeya. Laakiin in lagu cuno faro aan la mayrin nin ma nijaaseeyaan. Nijaasadu maaha waxa la iska dhaqayo oo jirka dadku intay biyaha markaa marmarsatay kumana waxaynaya. Nijaasadu waa waxa qofka
kale waxyeela ama sharka abuura oo ayuu Bible-ku u yaqaana. Roma 5:8 laakiinse Masiixu waa inoo dhintay intaynu weli dambiilayaal ahayn, oo sidaas Ilaahay jaceylku inoogu muujiye. Ilaahay baa wixii aanan samayn karin oo dhan noo sameeyey, oo ma aragtay jaceylkiisana aan ku wada badbaadnay. Marka Rabbi qofkii Masiixa soo raaca oo nasiibkaas yeesha hadiyadaas uu helayaa. Waa mahadsantiin.